muddadii 2 sano ahayd ee jiitanka doorashadu socday maamulka Jubbaland waxaa lagu tirinayay inuu yahay awoodda ugu badan iyo lafdhabarta uu ku tiirsan yahay Siciid Cabdullaahi Dani oo u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya marka laga yimaado Puntland. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dambiil ku ritay 48 xildhibaan oo deegaan doorashadoodu tahay Puntland, waxaana uu rajeynayay sidaas si la mid ah inuu ugu yaraan 40 xildhibaan oo Jubbaland ah dambiil loogu soo rido si uu doorashada iyo damciisa filla Soomaaliya u gaaro. haddaba waxaa jira isbeddello soo baxaya oo muujinaya istiraatiijiyadaha cid walba isticmaalayso iyo sida loogu kala aragti duwan yahay marka ay timaado danaha gaarka ah. labada musharax ee kaliya ee hambalyada u diray garabka xildhibaanada lagu soo xulay ceel waaq ee maamulayay Axmed Madoobe waxay noqdeen Siciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud. ma jiro ilaa ay hadda musharax kale oo hambalyo u diray garabkaas. waxaa sidoo kale hambalyo u diray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo labadaas musharax mid ka mid ah dhisaya. waxaa soo baxaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu si weyn ugu qabsaday musharax Siciid Dani taageerada Jubbaland isaga oo la yimid farsamooyin uu ku socodsiin karo damaciisa. haddii ay taasi u hirgashana waxay waxba kama jiraan ka dhigaysaa dadaaladii musharax Siciid Cabdullaahi Dani ku jiray 3 sano ee la soo dhaafay. doorashada aqalka sare ee shirgudoonka maalinta Talaadada ah gaar ahaan ku-xigeenka labaad ayaa noqonaya goobta ugu horeysa ee la isku hirdiyo. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaano badan oo Jubbaland ah ayaa wada in kursiga ku-xigeenka labaad lagu taageero Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku beel ah madaxweyne Farmaajo, waxaana uu haystaa sidoo kale taageerada Axmed Madoobe. arrintan haddii ay hirgasho waxaa Jubbaland xooggeedu u wareegayaa dhisidda Xasan Sheekh Maxamuud oo wacad ku maray inuu ra'iisul wasaaraha siinayo beesha ogaadeen haddii ay taageeraan. haddaba si looga hortago ra'iisul wasaare ku hayb ah Axmed Madoobe ayaa musharax Siciid Dani iyo kooxdiisu waxay wadaan sidii loo dhisi lahaa Senator Ilyas Badal Gaboose oo ka soo jeeda beesha ogaadeen, taas oo wax ka beddelaysa habqaybsiga isla markaana u diidi karta in ay ku hamiyaan ra'iisul wasaare haddii markaan lagu xiro shirgudoonka aqalka sare, isla markaana dib u soo celin karta taageeradii markii hore Jubbaland u haysay musharax Siciid Dani. waxaa xusuus mudan nidaamka wax qaybsiga ee 4.5 waxaa inta badan lagu saleeyaa kuraasta lagu magacaabo sida ra'iisul wasaaraha. musharax Siciid Dani ayaa ku guuleysan waayay inuu mideeyo 12 xildhibaan ee aqalka sare ee ku metelaya Puntland, waxaana ka sharaxan 3 musharax kuwaas oo sheegay in ay damac siyaasadeed leeyihiin ee aysan qof meel ugu xirnayn. kooxda Xasan Sheekh haddii ay ku guuleysan waayaan Senator Fartaag in ay soo saaraan waxaa ka go'an inay kaararka saarsadaan Senator Timacade oo Puntland laga soo doorto. Ra'iisul Wasaare Roble oo la aaminsan yahay inuu dhisayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo maanta ka dhoofaya garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa uu kula kulmay labada nin ee hadda isku haysta taageerada Jubbaland waa Xasan iyo Dani, waxaana saddexdu ku mideysan yihiin taageerada iyo hambalyada garabka ceel waaq oo loo diidan yahay weli in la siiyo aqoonsiga xildhibaannimo. maalmaha iyo saacadaha soo socda ayaa kala cadeyn doona halka taageerada Jubbaland u wareegto ama ay ku nagaato.